بسم الله. السلام عليكم. walaalkayow walaashay waa idin salaamay meel ba joogtaan salaan kadib walaalkayow walaashay meel ba qalad ba ka dhacaya qaladka ka dhaca yuusan noqonin mid joogto ku noqda oo dhaqan caadi ah ku noqda waa inaad ka soo laabato ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله kuwa markay xumaan iyo faaxisho sameeyaan ilaahay u soo laabto ilaahay xasuusta oo dambi dhaaf weydiista fastaghfiru lidhunubihim waman yaghfiru dhunuba illa Allah oo markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala xasuusta inuu alle dambi dhaaf yahay ilaahayna u soo laabta sidaana uu dambi dhaafka ilaahay ugu soo celiya nabiguna sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri كل ابن آدم خطأ وخير خطائين توابون ابن آدم دون وذا خلط ميان خلط وكاد عيا قف وكاد عيا وحول وكاد عيا حماول وكاد عيا لكن وخير خطائين توابون وين نقطة قفك خلط مركو قلي صولابته كان صولابته أو إلهي أصولابته أو إلهي حسوسته أو إلهي أصول نقضة أو إلهي رب سبحانه وتعالى وتوبت كان كاس ويأدون كخير كبدنا مركا ولا الخلط مركو كادعو إلهي أولابو إلهي أطوبت كان إلهي رب سبحانه وتعالى مركا أطوبت كنت إلهي وحوليه addoonkayga adoonteedu waxay ogaadeen inay leeyihiin rabbi u dambi dhaafa waana u dambi dhaafay marka walaal xumaanta ha joogteynin khaladka ka dhaca ha joogteynin gafka ka dhaca ha joogteynin ilaahay u noqo ilaahay xasuuso malaa'ikta garbaha ka saaran xasuuso ilaahu tooba dheh adoo ooyay ilaahay u sujuud ilaahu waa ku toobad kanay dheh hadaa saad tiraahdo ilaahay subhanahu wa ta'ala toobada waa ka aqbalaya laakiin hadaa joogteyso oo aad dhaqan caadi ka dhigato ogow meesha ku dambaysa waa jahannam iyo cadaab. السلام عليكم.